السلام عليكم dhalinyaro waad salaamay badanaa inta dhalinyarada la yahay waxay noloshu nagu dhaaftaa lahwi iyo micno la'aan balse waxaan ogaanaa goorkan shaw waliba inaga lumay oo albaab waliba inaga soo xidhmay oo aynaan dib u arki doonin ama aynaan helin ilaa awgeed shan qodob ayaan halkan ku soo tabinayaa haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay oo aynu wax uun ka faa'iideyna haba yaraatee ama inagu soo kordhinay qodobka koowaad wuxuu yahay dadku way ku kala duwan yihiin oo midba darajo gaar ah iyo agtaada ku leeyahay midaad jeceshahay iyo midaad neceb tahayba way jiraan adiguna ogow in dadka agtooda ad sidaas oo kale midba boos gaar ah qodobka labaadina wuxuu yahay qof kasta oo arrin ku xeel dheer ama xog ogaal u ah oo wax laga weydiiyo ogow inay jirtay maalin arrinkaasi aanu u bilownayn maanta wax laga weydiinayo marka loo baahdo arrimaha cid faalaysa keliyana hal qodob oo suurag qodobkaas oo ah joogtayn iyo inaanu shaygii qabiye kaga tagin ka saddexaad sida aad iskugu aragto markaad naftaada qiimeynayso qof nolol adag soo maray ama imikaba nolol adag la nool qof halgamaya oo waaya adag ku gadaaman yihiin qof cidhiidhi iyo culays iyo diiqad qalbiga ka dareemaya haddana marka uu dadka la joogo si caadiya ula nool oo is adkaynaya oo aan laga dareemaynin oo waayihiisa qarsaraya ogow in dadkaad la joogtaa haddaanay dhammaantood sidaada wadaahayn ay qaar badan oo sidaada ay jiraan qof walibana imtixaan gaar ah oo marayo iyo duruuf gooniya ay ku gadaaman tahay oo qof walba tiisu ay cuslaysay sidaa awgeed ummadda aad la nooshahay wanaag ku wada dhaaf ogowna in muslimku yahay qofka gacantiisa iyo adinkiisaba dadku ka nabad galaan sidoo yiri suubanaheeni sallallahu alayhi wasallam qodobka afraad raasamaalka ugu weyn ee qofka bini'aadamka haysta waa qalbigiisa ee cidna ha gaarsiin nabar aanay ka soo kaban ama ay habeena badan kalidi weyn shanaad u noolow noloshaada ku gaarka sida ku roon adigoo aan cid kale mataal u noqonayn ama dheegid qof waliba wuxuu leeyahay khusayso iyo shakhsiyad u gaar ah adiga oo waxa wanaagsan kaga dayanaya cidda kaaga mudan intii karaankaaga